السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore yara sixi lahaa waxaan u maleynaa magaca uu iska update gareyn magacayga Mustafa Deeq Axmed baa la yiraahdaa maaha Yusuf 10 mir baa la siiyay waqtigan doonayay inaan kaga sheekeeyana waxay la tahay inuu aad u kooban yahay marka intaan isku kari karo insha Allah waan soo koobi doonaa waxaan dhigtaa jaamacadahan Madiina Tacliimiya jaamacadda Georgetown waxaan ka imid school waaya dhaweytoole media aad ugu jirayo abaarsan layraa marka waxaan aadan baa iga codsaday bal xoogay inaan bal jaaliyada aan wixii aan anigu maadaama aan ka imid schoolkii bal wixii aan aniguna ka oran kari lahaa aan ka yiraahdo marka anigoo yara degdegayo 10 ka mir aad igu yar yahay waxaan doonayaa marka hore inaan ka arar yar ka horeysiyo waa midda koobaad ee horta abaarsay may soo diran aniga oo calashan iskuulkii kama hadlaayo marka waxaan ka hadlayo uma qaadan kartid sidii wax iskuulku yiri waxaan ahay qof isagu shakhsigiisa iyo wixii uu ka hadlaya marka taasi waa mid haddii aad adigu xaqiiqo inta ka badan doonayso waxa qurux badan inaad wixii wax inta ka badan adigu aad marka aad baadho marka waxaan doonayaa bal iskuulka inaan in yaro dul maro oo si yar degdeg ah u dul maro bal cid alla iyo waxyaabaha lagu dhigayo waxa iyo deedna waxyaabahan laga sheegay iyo waxyaabaha ka jiray iskuulku ku daloolooyinka uu leeyahay iyo waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay inta inaan si yara degdeg u yar dul maro iskuulka waxa la aasaasay sanadkii 2009 waxaana aasaasay 3 qof bay ahaayeen runtii markii ugu horeysay nin Mareykan ah iyo 2 qof oo Soomaaliya labada qof ee Soomaalida ahaa nin Axmed Xuseen Ciise baa loo oran jiray nin oday kalena Bilal loo oran jiray oo aad u daaweyn buu ahaa marka isagu meeshu buu waday markii dambe maadaama daadiisa iyo tamartiisu ay isaga aad u sii daciifaysay uu ka baxay waxay isugu soo haray ninkii Mareykanka ahaa oo Jonathan la yiraahdo meelaha ka maqasheen baa laga yaabaa iyo nin Axmed Xuseen Ciise la yiraahdo oo isaguna Abaarsa Tech University mid jaamacad la yiraahdo imaka Hargeysa ku leh 2009kii waqti aan South dheerayn bay isqabsi baa iskuulka soo dhex galay marka iskuulka boarding ee Abaarsa inta badan magaciisa maqashaan waxa looga haray ninkii Mareykanka ahaa jaamacadiina waxa yeeshay Axmed Xuseen Ciise ku haray oo ilaa hadda Hargeysa ka jirta iskuulka marka ninka Mareykanka ah maamula ilaa haddana gacanta ku haya macallimiinta wax ku haysa waxa weeyaan badankoodu waa macallimiin Mareykan ama Canadian adigu European ama Soomaali way ku jirtaa laakiin inta badan Soomaaliga inta badan ku jirtaa waxa weeyaan Soomaali xaq iyaduna inta badan naga timid manhajka lagu dhigaa waxa weeyaan manhaj Mareykanku ayagu wataan waxa ku jira oo iyaduna mar dambe la soo geliyo waan ka hadli doonaaye wixii ay uga baahnaayeen inay ka soo qaataan manhajka Somaliland ama qaybta ay ku yaalaan oo ay ka soo qaateen Carabiga iyo tarbiyada iyo Soomaaliga adigu inta dib baan ugu noqon doonaa iskuulku marka wuxuu waa boarding hablayeen ma dhigtaan habluna waa la seexdaa qayb ay seexdaan inamaduna qaybtooda ay seexdaan waxaan markaa doonayaa inaan yar dul taago bal iskuulka xaaladda ka jirta iyo noloshoodu tahay iyo halkan bal ay dhibaatadu inta badan ka jirto iskuulka sida aan sheegayba nin Mareykan ah leh oo isagu gacanta ku haya oo macallimiintooduna waxay u badan tahay macallimiin Mareykan ah waxa markaa si jirta arrimo inta badan dadku aad isula dhex maro oo la yiraahdo iskuulkan dhaqan xuma lagu dhigayo Kristaan baa lagu dhigayo horta dadka waxaan u cadeyn lahaayo jirta qof hadii uu doonayo inuu ama diintaada ku soo duulo ama dhaqankaaga ku soo duulo intuu soo cararo cadaan wax u sheegi maayo koormaayo waa ayaa diintan ka bedelaya wax banaan la iskaga bedelaa ma jirto adduunyada laakiin waxa jira waxyaabo la soo dhex maro oo imaka social media ka mid tahay dhaqaalo kale ka mid yahay waxbarashadu ay ugu weyn tahay waa meelaha ugu badan inta badan la isu soo maro qofka hadii la doono dhaqankiisa iyo waxyaabaha lagu bedelo laakiin waxa weeyaan wax inta meel la soo bahaleeyo ama calaamad Kristaan laga dhex taagaya ma jirto waxyaabaha inta badan suuqa aad ugu jira waxa kamid ah in la yiraahdo waxba diinba caadi loogu dhigaa runtii macallin markaan iskuulka dhex joognay inta badan waxa iskuulka mamnuuc ka ah inaad macallinkaaga weydiiso diintiisa iyo waxyaabaha aynkaas kala sheekayso macallinkuna saasoo kale ardaydiisa ka waraysto laakiin tajirteen doonayeen inaan ka hadlaa waxa weeyaan iskuulka waxaad moodaa inay gadaloolooyin badani ka jiraan xagga waalidka oo iyagu ahayd inay qaataan roolkii ahayd inay ardayda dhaqankooda iyo diintooda ay ka warhayaan
waayo iskuulka imika waxa lagu soo kordhiyay in arday yar oo 7 ah la keeno arday yar oo 7 markaad boarding geynayso oo ka maqnaanaysa 3 bilood oo ka maqnaanayo waxa weeyaan inaad gacantaadu markii hore ku jiray aad gacan ku aamina aad ku sii deyso marka waxa weeyaan waalidku intuu meesha yimaado oo ilmihiisii qof salaadii u kicinaya tarbiyadiisii ka eegaya waxyaabahaas oo dhan waayo qofku markuu 7 jir ilaa 12 jir yahay waa xilliga la dhisayo marka ay xilliga ay ahayd inay waalidku rool ka qaataan dayaca ugu weydina halku ka imanaya waa halka waalidka tusaale kale aan ku daro xagga waxa la yiraahdaa dhaqanka kale iyo iskuulka aad looguma dhigo waa waxba ka jira sababta ay ugu jirtaana waxa weeye anigu 5 sanadood baan horta iskuulka joogay 4 sanana waxbaan ka dhiganayay sanadna waxbaan la dhigayay oo macallimiintan la shaqeynayay markaas fursad waxa ay siisay inaan meesha sii dhex galo inta macallimiinta la shaqeeyo sanadkii ugu dambeysay marba macallinkii tarbiyadda dhigayay naga tagay waalidkii baa la hadlayo lagu yiri waalidow waxa loo baahan yahay macallinkii tarbiyadda iyo carabiga keena 5 bilood bay la maqnaayeen marka nin gaali uu kooranayo macallinkii tarbiyadda ama carabiga keenad 5 bilood la maqnaanayso meedimo waxaad saaraysaa ninkii gaalka mise waalidkii anu waalidkan saaraa maadaama iyagu yihiin wax dadkii ahayd inay diinka iyo dhaqankooda iyo waxanba ka warhayn lahaa ay yihiin marka waxa weeyaan arrin ka timid maaha dadkan inta badan ayada saaraan ay yiraahdaan waa liinugu soo duulay laakiin waxa weeyaan duulimaadku wuxuu ka socdaa anigu u turjuntaa waalidkii oo aan qaadanahayn buuxinahayn meeshii looga baahnaayon inta markaan ka imaado iskuulku runtii waxyaabo Soomaalidu waxay tiraahdaan nimco walba nusqaan leh waxyaabo badan oo wadanka runtii jirin buu iskuulku ku soo kordhiyay oo fursad badan arday u siisay inay waxbarasho qiimo leh helaan waxyaabaha iskuulku inta badan aanu ku baranay intii aanu joognay oo kale waxa kamid ahaa horta runtii markii anigu waxaan iskuulka ku biiray oo kale waxaan ku biiray markii aan ka baxay galaaska 8aad sagaalaad baan markaa galiyay dugsiga sare kolba saad u taqaano iskuulladeena qofkii soo maray oo soo wada marteen baan u maleynaa waa taqaanaan qishka iyo waxyaabaha caynkaas waa wax iska caadi ah runtii waxaana weeyaan aniga ila tahay bulshadu waxa weeyaan ardayga markuu meelaha ku jira hadii aanad si wanaagsan waxyaabihii diintiisa iyo dhaqankiisa khalad ku ahaa aanad ka reebin waxa weeyaan hadhow toole xaqii sare soo maray qof haduu doono qish soo socday iskuullada waxyaabaha aanu aadka ugu baranay ee aan aadna looga dagaalami jiray waxa kamid ah qishashka waxyaabahan inaad qishku sidoo u bahalaysan yahay aad u fahanto laakiin runtii iyadana waxa weeyaan dhanka kale aad ka soo eegto waxa weeyaan nin gaali marka uu ku sheegayo inuu qishkii xun yahay oo kale una laakiin ku carabaadahayn inuu ku xun yahay diintaada ku sheegta ama dhaqankaaga reebay waxa weeyaan ilmihii yaraa 7 jirka laga yaabaa inuu u qaato inuu waxan diintiisa iyo dhaqankiisa ayna reebinba qofka sheegayaaba in halka adu muhiimad waxay tahay qofka sheegaya ayay muhiimad u tahay waxa jirta iskuulku wuxuu waxbarasho dabadeed u diray arday aad u fara badan ilaa hadda inta aan ka warhayo arday gaaraysa dhowr iyo 80 arday ayaa badankoodu Mareykan joogaan maanta ugu dambeysay arday baa jiray jaamacadaha kamid ah jaamacadaha ugu qaalisan Mareykanka Harvard iyo Columbia ba soo wada aqbaleen waxa weeyaan waa nimcooyin badan oo qof jaamacadda ugu kamid ah jaamacadda adduunyada ugu wanaagsan wax ka soo baranaya tagaya waa nimco aad u wanaagsan laakiin waxa weeyaan nimco u baahan in la ilaaliyo oo qofka lagu ilaaliyo diintiisa iyo dhaqankiisa tusaalan doonaya inaan ka yara bixiyo waxaan maayndoo toolo qisaan akhrinay markii dagaalkii koowaad ee dunida laga baxay Japan doonaysay inay industrialization iyo waxaan ay yiraahdaan ay doonaysay ay Germany u diran jirtay arday sidaas leeg ardayda ay dhigan jirtay waxay raacin jirtay nin diintiisa iyo dhaqankiisa u ilaaliya waa Germany dad muslimiin maaha galba gaal u diranaya galba intuu arday ka qaato Japan buu Germany geysanaya inaga waxa weeyaan diyaadayna muslimiin waa laba ku siman laakiin isku dhaqan maaha wuxuu doonay inuu dhaqankiisa ilaashto inaga kuweena inta badan dhibaatada weyn waxa ka imanaysa waxa weeyaan waalidkiiba la oranayaa jaamacad buu helay waa la dirayaa iskuulka labada daba socda waalidku ma daba socdo dhibta ugu weyn halka ka taagan tahay waxa weeyaan waalidkoon isagu roolkii looga baahnaa buuxinahay ardayda waxa loo baahnaa inay marka la diro la daba socdo iyagii la isku xidho dhaqankooda iyo diintooda loo ilaaliyo la xasuusiyo inay meesha ka yimaadeen iyo baahida looga qabo cilmi walba nooc walba noqdo marka taas jirta
waxaa jirta oo kale oon iyadana raacin lahaa iskuulku wuxuu ardayda ku xidhay fursado badan oo jira. Tusaale yar baan taana doonayaa inaan ka bixiyo imtixaanada qaar lagaaga baahan yahay jaamacadaha adduunyada markaad ablay garaynayso kale meelaha ugu dhaweyd ka heli jirta waxaa ka mid ah Itoobiya oo kale ama markay ugu yaraato Djibouti adigu wadan la aqoonsan yahay. Iskuulku wuxuu ku guuleystay in imtixaanada qaar oo kale la keeno abaarsa dhexdeeda, laakiin waxaan doonayaa inaan ka bahaleeyo meeshay doontaba ha noqoto ama waqooyi ha noqoto ama koonfur kaleba ha noqotee tamar darrida dee Soomaali dowladaheeda oo kale imtixaan yar inay organisation yar la hadlaan ay yiraahdaan war halka ilaa Itoobiya tagi kari maynee halkan noo keena ayaabay dhowr iyo 30 sanadood aynu tahli weynay abaarta markaan ay jirtay 3 sanadoodna waxaanu ku guuleysanay inay organisationku ay iskuulka dhexdiisa noo keenaan imtixaanka SAT oo kale la yiraahdo. Itoobiya markii ugu horeysay ardayda ku gashay laakiin mar labaadkii waxaan ku wada galnay abaarso. taasina waxay u fududaysay arday badan oo imaka ka yimaada inay ku galaan oo ay imtixaanadoodii ay meel kale u doonan lahaayeen intay halka ku galaan ay deedna wixii ay ku qabsanayeen ama jaamacad ay ku ablay gareeyaan. markaan soo koobo waqtiguna aad buu yar yahay. runtii adigu sidii aan horeba u sheegay haddii aad xaqiiqooyinta ka badan aad raadinayso waxay la tahay inaad iskuulka booqato kale dadka inta badan iskuulka wax ka sheega dad weydiiso kaliya war iskuulkan ma booqato habeen ma soo seexatay meeybu ku oranaya qofun baa waxay sheegay qofuna waxa wanaagsan runtii inuu isagu ma aragtay intuu markaad xaqiiqada doonayso inaad meesheedii u marto soo seexato iskuulku waa furan yahay sanadka ugu dambeeyay kale waan ka shaqeynayay dad badan baa soo gala seexaanu ku nirahnaa wixii jira adigu ogow. laakiin halka iskuulka inta badan ay yiraahdaan diin baa lagu dhigaa iyo waxyaabaha run ahaantii anigu 5 sanadood joogay wax lagu dhigaa ma jiraan laakiin inta ugu badan waxaan inta badan saaraa waalidka oo iyagu markii dayacay ardaydii markay roolkoodii dayaceen ay halka ka soo muuqatay dhaliilo aad u fara badan. arday maadaama aan iska ahay inta badan socodkaygu ma yara laakiin haddii aad wax su'aalo kala haysa ama aad doonayso iskuulka inaad wax badan ka sii ogaato insha Allah numberkayga aadan oo kale aad kala xiriiri doontaa ama halkan waan joogaa markaan dhamayno insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa si wanaagsan manhajka iskuulka laga dhigaa waxaan wadaynaa inaan taas mention gareeyay waxa weeyaan Mareykan laakiin adigu manhaj Mareykan oo iskuul gaari yahay ma aha waxa weeyaan matalan xisaabta kale hal iskuul bay ka soo qaateen ingiriisiga kale hal iskuul bay ka soo qaateen laakiin manhaj dawladdu diyaarisay maaha waa manhaj ay iyagu wataan oo ay dhigtaan runtii waxaana weeyaan meelaha iyaduna u baahan in dawladda iyo dadka wax garadkii dib u eegaan waa manhajku inta badan dadku waxay moodaan in manhajku waxbarasho maaha manhajku dhaqan buu sidaa diin buu sidaa wax kale uu sidi karaa marka manhajku ma aha mid ay inagu diyaarsanay waa mid la inoo diyaariyay. salaada waa noo ogol yahay macaal wax masjid uu leeyahay masjid aad u weyn buu leeyahay. waxa kale oo aanu markuu guuleysanay salaada marka la eedaamo in waa nala fasaxaa waanu tukanaa maqribkoo kale ku badbaanu ciyaari jirnay matalan markii aan anigu joogay proctor wax la yiraahdaan ka ahaa waxa kale oo ku guuleysanay inaan niraahno maqrib marka la eedaamo ku badban lama ciyaari karo. walow ima kama indhaweyd inaan kale la hadlayo wixii ugu lahaa dib bay u soo noqotay oo arintii maqribkoo kale dib bay u soo wadaan. waana waalidkana inay wuxuu igu lahaa waalidka waan la socodsiinay laakiin waa arintii aan sheegay lahaa waalidkana aad uga warhayn inta badan. Hargeysa wuxuu jiraa 15 kiiloomitir oo kaliya ta 15 mir baad u soconaysaa. waxa kale oo doonayay inta badan inaan ku daro ardayda inta badan iskuulka dhigata meel walba way ka yimaadeen runtii ardaygaani ma ka sheegayn lahaa jaamacad wanaagsan buu galay waqooyi xaga kama iman koonfur buu ka yimid Muqdisho ka yimid Muqdisho kale imtixaanka waa lagu qaaday iskuulka lagu galaayo. odayga muxuu Axmed Hurmud odayga ka bahalka ah ayaa wakiil ka ah oo ku qaada bahalkii gaalkacyo arday baa nagala joogtay marka meelo badan baa lagu qaadaa laakiin inta badan dadku ma bahalayaan laakiin taad u baahan tahay inaad adigu marka hore daristaa waxa weeyaan ilmahaaga halkan ma ku haboontay mise maya taas muhiimad u tahay. haye
aan soo koobo ay waqtiga ay nagu baahday free ma aha laakiin xoogay scholarship way bixiyaan ardayga haddii imtixaankiisa kale uu aad u sareeyo imtixaanka ka qaadan hadduu aad u sareeyo way siin karaan xagga dharkan iyo markii aniga 3 sano 2 sano imaka waan ka soo maqnaa dharka oo kale dhar gaar ah hablaha inta badan uga baahnaayeen oo ay oran jireen xidha inamadoo kale marka eegiyo kale isna dirays buu leeyahay marka iskuulku dirays buu leeyahay habluuna dirays bay leeyihiin marka wax kale wax walba kuma geli kartid waan joogaa meesha marka wax su'aalaha hadii aad haysaan insha Allah